waxaan rabaa inaan warkayga ku bilaabo inaan u mahad celiyo baarlamaanka uguna hambaliyeeyo doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada oo runtii rajada shacabka Soomaaliyeed kor u soo qaaday marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intaas markaan ka gudbo qodobka labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha sida ogtiin dalka in badan oo kamid ah waxaa ka jira abaaro baahsan iyo macluul dhibaato badan gaarsiisay dadka tabarta yar taasna waxay nagu bixinaysaa inaan ilaahayna barino marka hore inuu barakaadkiisa iyo roobkiisa iyo khayrkiisa oo ummadda u furo sidaas oo kale dadka Soomaaliyeed waxaysta ama kuwa gudaha jooga ha noqdaan ama kuwa dibadda jira waxaan ugu baaqaynaa inay walaalahooda garab istaagaan sidaas si lamid ah hay'adaha caalamiga ah gargaarka dawladaha saaxiibada la Soomaaliya ee mar walba garab istaaga jira ayagana waxaan ugu baaqaynaa mar kale inay shacabka tabaalaysan gargaar la soo gaaraan anaga ugu mahad celeynayna intii qayb ka qaadatay markii horeba intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha amniga sida ogtiin Soomaaliya waqti dheer waxay ku jirtaa amni darro amniguna wax taabanaya qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya iyo ajnabiba qof kasta oo dalka xiriir la leh waana meesha noloshu ay ka bilaabatay haddaan amni la helin horumar ma jiro haddaan amni la helin waxbarasho ma jirto haddaan maxay ahaato amni la helin nolol jirtaa ma jirto amnigana intiisa badan wuxuu saaran yahay dawladda waxa loo sameeyay waxa waa inay mataqaanaa shacabka u adeegto oo ka bilaawdo waxyaabaha ugu muhiimsan marka maadaama xilliga doorashooyinka la joogo waxaan rabaa ciidamada qalabka sida inaan ugu baaqo inay amniga adkeeyaan aad ay muhiim u tahay maxay la waa xilli muhiim ah waa xilli kala guur ah waa xilli cadawga uu ka faa'iideysan karo marka goobaha ay joogaan iyo meel kasta ay ku sugan yihiin ay ku adkeystaan shacabkana amnigiisa sugaan intaas waxaa sii dheer waxaan rabaa inaan ku amaano geesinimada iyo kartida iyo dulqaadka iyo duruufta adag ay ku shaqeeyeen waxaa wada ogtihiin ma aqaan 8 bilood waqti la eg mushaar lama siin ciidamada qalabka sida marka ciidanka inta sabrayay waxay naga mudan yihiin kulligooda sharaf iyo qadarin una soo jeeda in guryaheena aan nabad ku joogno qodobkaas inta aan ka bixin waxaan rabaa inaan ilaa qorshaha برنامج سياسيات كجرا متقنا برنامجيجا وحقوق وين أرمها أمن صابتنا وحواي هرمر المرة عكرة هذا الأمن اللي شغالين أمن جنا وحكب الله وين رد الصعيد من الغلب كسر إن الأرض ما يستر وحيابها لقوا مارمانك أما هنقضى قلبك وحكود دفاعان أما هنقضى نلش أما هنقضى ماريها يجوج لا ينسي حلوين كعيدا مثلا hay-adaha kala duwan waxa ogtihiin xilligii koobnaay mataqaanaa aan dalka hogaaminayay ayadoo duruuf adag joog jirto oo al-shabaab albaabka ay taagan yihiin oo dhaqaale uusan jirin dawladda ay ku meel gaar tahay ciidanku moralna waxay u hayeen shaqadooda isla markaasna wuxuuna gaari jiray xilliya kala duwan marka runtii waxyaabaha isweydiinta la waxay yihiin ayadoo naloo sheegayo dekada kaligeeda inay dhowr malyan ka soo gasho lacagtaas meesha ay aaday runtii waa su'aal ay tahay inaan isweydiino sababtuna inaan cod ku dhawayna ma aha laakiin mas'uuliyadda caamka ayaa keenaysa in laga hadlo waxyaabaha ka soo kala dekada airportka canshuuraha dakhliga oo dhan meel uu ka yimaadaba waa wax ummadda ay wada leedahay waxa loo bixinayaa in ummadda loogu adeego waayo marka lacagaha intaas la eg inay soo galaan oo ciidamadu ay mushaar la'aan ahaadaan runtii waxay muujinaysaa fasaadka iyo corruptionka meesha uu gaaray waxa la yiraahdaa qofka xumaanta ka aamusa wuxuu la mid yahay qof raali ka ah marka maadaama nidaam cusub oo noo bilowday baarlamaan cusub la doortay waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka inay abuuraan guddi
la socda dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalka si loo xaqiijiyo inaan loo isticmaalin dhaqaalahaas meelo khaldan waxaa dhici karta in loo isticmaalo doorashooyinka maxaa yeelay dadka waa la gaajaysiiyey waa la dhibay waa baahdeen go-aankooda in la iibsadaa loogu talagalay waxaa lagu talagalay in la cabsi geliyo in la gaajaysiiyo marka waxaan leenahay taas mid la aqbali kara ma aha baarlamaanku waa inay qaataan waxa laga filayo maanta qodobkaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo maxaan filaynaa inay dhacaan doorashooyinka waxaan filaynaa inay dhacaan baarlamaanku runtii waxuuna tusiyey go-aan geesinimo leh waxuuna tusiyey in ay jecel yihiin go-aankooda mas-uuliyaddiisa inay qaataan amaama allahi iyo amaama shacab runtii waana arrin aan hambalyeynayno taas waxay dhiiri gelinaysaa xafiiska mataqaana laga hogaamiyo dalka inuu isbedelo waxaan aaminsanahay inay daruuri tahay waxaan aaminsanahay inay ku fashilmaan inay gaarsiiyaan wixii ay ballan qaadeen waxaan xasuustaa xilligii doorashooyinka madaxweynaha walaalkay xasan sheekh waxyaabaha aada dhegteeda usoo jiita waxaa ka mid ahaa waxaan ballan qaadaynaa 3 waqti in miiska wax loo saaro qofka Soomaaliga oo wax uuna helo ma dhacdo arrintaas بالعكس يا نعم مركز فيرسو لحد قضبة أو شيء مدحوينه كل قضبة مثل كستوى عكسي وهذا وعن حصوصنا أمنية وبريورتي وكوبات والله بعد وسدحات انت أصواه بقى إنه سيدا في كلامه أمنية اللي قش غير ما أنت أنكون على لون عجوز جوا مقال هذا دوما كل حين أنت ملا هذيك ارتمله واقرأت السمع دل كان maanta wuxuu u baahan yahay cid badbaadisa ka shaqeysa nabadiisa horumarintiisa ka shaqeysa ayuu u baahan yahay waxyaabaha aan isweydiiyay marka waxa kamid ah ereygan lagu soo celiyo oo qabyo ninkeeda dhameystira ma isweydiina harta qabyo ninkeeda dhameystira goorma la yiraahdo cid shay karta mid ku jirtaa qabyo ninkeeda dhameystira waxa la yiraahdaa qof hawl loo diray shaqad loo soo qabo waayay lagu khasbaayo inuu qabto shaqadii hal la qabiyo ninkii aad dhameystira raal ah shaqadaas ka soo dhameystir tan shaqa khasaba ma waa shaqa adiga aad dooranayso waa shaqa lagu dooranayo waa shaqa qaran marka munaasabad lama laha xiriir lama laha mahmaayadaan meesha ay soo gasho hadiiba aad qabiyeysay madaxweyne hadiiba aad qabiyeysay shaqada lagu doorto oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacdo arrintaas waxaan u maleynaa xaq u maleyn mar kale inay soo taagto waxay kugu taa fadeexo waxay kugu taa wajigo inaan mar kale tira halay taagan sidaas oo kale waxaan dhihi lahay inaad dhaqaalaha qaranka u isticmaashid hantida qaranka inaad u isticmaashid kursiga inaad u isticmaashid inaad uga faa'iidaysatid mar kale si aad ugu soo laabatid si mar kale dhuunta uga qabatid ummadda arrintaasina sax ma aha فرصة لوجسية لوجما أقول إن شاء الله أنا قاعد أقول وحنا إسلام أنا ولا يقرأ وحنا إسلام نيجا وحكي عنه سميدنا حقيقة هذه شيء لكن واحد دعي واحد في لا يماها من الأقبال كرا مركرين رسول الله صابت عن الله أنا وحكي لماها وأكتي إن تلك واحد عن كسور منه ماشى اللي كسور باللعبة ماشى اللي جارسية أنا قاعد هبي هم وريجنا كتجنا وحكي لنا ما هرها وسعدي هرمي الله سعدي هر الله مسعني صو معقول ميا مانت إنه ولا قنعيو isla nidaamkii aan soo celinayna maxaa soo kordhay qofku xataa hadduu wax ka bartay khaladaadkiisa waa fiicanta hal khalad oo ay galeen ay bedeleen hal sheeg midaal waxa ah doorashooyinka ka dhaca gobolada sida loo boobay oo keentay crisis hadda ka bilowday gobolada midaal waxa ah galmudug dalkan waxa uu burburo waa cadaalad darro madaxda qaranka waxa la rabaa dalka inay ku hogaamiso cadaalad madaxda qaranka waxa laga rabaa dadka inay midayso sida dadka loo qaybiyay sida dadka mataqaana la isugu diray waxay nagu boorinaysaa fursadan baarlamaanka inaysan beer darayn marka mar kale waxaan ugu celinaa xubnaha sharafta leh baarlamaanka iyo golaha sare inaysan fursadan dayacin waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaalida waa dad runtii
خلالات كأنه وعلنا لكن أنا وحن أمسنا صومالي ضد في عنينه وحن أمسنا هاي ضد سوء عليك شرف كأي هاي نيهين لكن وحي أبا هايهين هجان ونعكس مرة هاي هجان كأوف في عنا أنجأ مرة هاي أبدا لكن وحن لا هاي نيد ونعكسنا وهاي خبرنا وسواكس بدي وحن أمسنا مال في عنا جرسي كرد الخير وحن الله هاي وحكي لما أنت إصامرتا نقوة فلان خبرة يعني مثلا حلقي محكمتها حلقي إسبهايسي قد بحرين تا حلقي دولتكم مالجارك كل جوده وحي هذه المراحل أذك أي هاد مر والبنا واحد عاية وحلا تابكر مرحلة كستوحي كسر لماتي وحلا تابكر يعني مثلا هدي مدحضو أي نغطو مدح دلك بوقت قرابة إذا كليه سود ويسف كالسوني دي أرو ما يسأل مدن وحا إمانيس كورما نكي مدح نغلا هدو فملكي سجابك أبوحيو كورما وحفي عن منغنى سمايا وحا أباهن هاي مدح نظيف كنغا كرت دقالها أما هنتي دقارن كنغا كرت وحان أباهن مدح نود حي كرت وحان أباهن مدحنا مداي كرت يعني أباهن قف بيرفكتي أمجرو لكن خيارات جرا وحلا كلا دورتا ما انتهي سما marka sidaas markale codsigayga waxaan rabaa inaan ugu celiyo inaan taageeradooda helno waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka la yiraahdo midnimada dadkan Soomaaliyeed waa dad Ilaahay oo mideeyay qabaa'il aan kala sheegana laakiin fi nihaaya Soomaaliya wadan aan deegaana kala ahaan kulligeena waxaan ku hadlaynaa luqada Soomaaliga aan kala si kasta kala ahaan kulligeena muslimiin aan Ilaahay fadligiisa haddana sunni shaafici arrimahaas oo dhan waxay xoojinayaan midnimada arrimahaas oo dhan waxay xoojinayaan qarannimada waxay u baahan tahay si fudud inaan u garanno hoggaan wanaagsan u dooranno hoggaan wanaagsan isla markaasna gacan aan ku siino waxa wanaagsan ee aan filayno inay suura galaan waxaan leeyahay wixii soo maray dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay waxayna siinaan khibrad maanta waxyaabaha runtii aan ku faani karno waxa kamid ah in 4 sanaba doorasho ay dhacayso laakiin doorashadaanu xilliga loogu talagalay waa dhaaftay maalin walba muddo la qabtaa maalin walba muddo la qabtaa ilaa hadda lama hubo waqtiga ay dhacayso ma isweydiisay waxaan oo dhan maxay u dhacayaan waxaan u malaynaa kursiga waa la jeclaa karaa laakiin waxa la rabaa kursiga waxa lagu joogi karaa sharci kaliya madaxna waxa laga rabaa wixii ballan qaaday inay ku dadaasho inay fuliso haddii dekada ay ka soo galayso 6 milyan ama 7 milyan ama 10 milyan oo doorashada ajidudo maalin walba qasnada dawladda lacag soo qaadido kaameenka ku gashid dadka kale oo kaameenka kula jirana dakhligooda oo kooban yahay ama aysan haysanin ujeedada wax loo jiiday marka waa cadaa karta in hanti la boobo umada la gaajeysiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'iideysto laakiin waxaan leenahay madaalayno diyaaraan nahay دعايات كاستهلا سمايو العقلان لا هذا عيب معها لكن عيب وحا إن توق لنقض هذا مدح قضب كم مدري ماذا ربعنا أو لابتو قضب كم مدري ماذا وحا أكتين أنك وحا لفرني ولا له أنا وغويقة أمر سمايل له ولا هذا لا لفرني وحن سوق أرسلنا مالي دي له أيضا واجي له هرول لقى هل ذكرنا بالله ما أنت ولا هذا الذي حكي كدم بيان ما شيء كدم بيان إيش شاقة وكذا واحد ما دوار أنت مركز قرشي وحواي ولا هذا الذي أنا سوء عليه ولا له أن عن وضع فريسانه وحلا بدأ نعبر هذا إسقيه أو كوكان عكران أو دن وضع أنا لك يعني إلهي ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى وعن ربنا أوجد بو غضبك معمولك هدان هي أداة الدولة ده أي الله معمول سوى ناقصن ضد خبرات ولا نظيفة هدان لو ديبين وحيمان يسدد كل أنه يتوجا نقدان أسباب تكنتي ضد كون الدولة ده ماذا أسكت درنا هذا وعرفت أمريكا حلبان ماذا اللي لها قبل كستبع أنت صح حلبانة كانت ولي جنوب أسود ديس الحلبان هذا محل وعرى حلبان وين محاول زي الماذا اللي هذنا محاول حمين اللي هذنا يا أسود دي أنا واحد أمسنا فكر خلدنا عم يسجل هذه مسؤولية ده أنا فهمنا إن هي مسؤولية وما دهورت هذا الواقع هذا لو حساب تماي إلهي هرتي سنة حسابها لقانا الربع وحي أطبلنا قاعدة إن فلسي تدكو سكة لو فكر لها لكن نصيب درده وحواي شيء خلدنا له فكرة وبدأ يهندد بدن
oo dareenkooda uu fiican yahay inay wax bedelaan raba laakiin waxaan isleeyahay fikirka caamka waxa waaye qof walba inuu madax noqdo si uu wuxuu boobi kara u boobo arrintaas waa arrin khatara waa arrin dalka dhibaato gaarsiinaysa waa arrin la rabo inaan aad ugu baraarugo inay waxaanu yihiin mas'uuliyad maantana su'aalo la iska weydiinayo berritana la iska weydiinayo waxaan rabaa qodobkaas marka inaan ku gabagabeeyo qorshayga waxaa ka mid ah haddii ilaahay ugu guuleeyo doorashadan yacni qof kasta oo dowladda mas-uul ka noqonayo in marka hore hantidiisa la caddeeyo lala socdo dhaqdhaqaaqiisa maaliyadda si loo xaqiijiyo hantida dowladda inaan la isticmaalin si khalada loo isticmaalin annagoo muslimiina in maalin walba la yidhaha corruptionka joojiya ani waxay la tahay ceeb waa ceeb weyn nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay xadiid ou leeyahay lacana allahu araashi walmurtashi walraa'ish yani ilaahay subxaanahu watacaala waxau lacnaday ou lacnadiisa ku rido ka fogaya naxariistiisa qofka laaluushka bixiya midka qaata iyo midka u kala qaado dulaalka ah bilaahi calaykum in maalin walbana la yidhaha laaluushka joojiya ma nagu fiicanta lacag kasta haddana waxaa jira xadiid kale oo nabiga uu leeyahy sala allahu calayhi wasalam kullu laxmin nabata bixaraamin fannaaru awlaa bihi xadiidka macnihiisu saas waay yacni jirkaaga qayb kasta oo ku dhalata raashin xalaal ah cuntay naara awla ku ah inay marka inaan waxaas oo dhan intaan iska daboolno dhagaha ka furaysano laaluushka uu noqdo shay caama waxay ila tahay waa shay aad u xun damiirkeena inuu dib istaagaan u baahanno waxaan u baahannaha damiirkeena inuu dib istaago in aan noqonno inaan qaadno mas-uuliyaddeena dhabta ah inaan qaadno haddii hoggaanka uu ku hoggaaminaya dalka inuu xoolaha dadka dhaco hantida dadka dhacana dadku ma toosi karo maxaa yeelay annaasu calaa diini muluki dadku hoggaankooda raacaya haddii hoggaan fiican la helo dadku waa fiicnaya haddii hoggaan xun oo yimaado yani marxaladihii lasoo maro kala duwan ay ka warran fiiriya adinka marka ujeeddadeedu waxa waaye maamul wanaag in aada looga shaqeeyo si qof kastoo soomaaliya oo u heli karo nolol wanaagsan wax yaroo na soo gaara hadda waa arkaysaa dalka dadna xoolihii meele kala geenay la yihiin kuwana gaajo u dhimanaa waxay cunaan helaan haddaa weydiisid 27 sano lasoo dhaafay hantidaan faraha badan dadku meelay ka keeneen waxaan u maleynayaa jawaab sax qof keeni karaa ma jiro soo xoolaha waa aruurinaynaa waana ka dhimanaynaa berri annagaa nala weydiina cidda aan u dhaafaynana dhibaatada mataqaanaa aan ku aruurinay iyo ayadda aan u galnay lama socdaan marka waxaan leeyahay waxaan u baahannahay shayga la yidhaha maamul wanaag taas waxay keenaysaa hay-adaha dowladda inay active noqdaan mushaarkan la waayo in ciidamada mushaarkooda helaan yacni ganacsatada waxaa lee sheegay dhowr kir sano lasoo dhaafay waa wada khasaareen leesh ma lacagaa la waayey mase wax kalaa jira lacag lama weyn lacagta ugu badanaa soo gasho dowladdan dowladii hore o dhan waa ka fursad fiina laakiin lacagtu markay jeeb gaara gasho isma sheegayso waa garata sooma laakiin waagii hore wuxuunaa soco jira qofka waxaa gacantiisa soo geli jira marka barnaamijka maamul wanaagga wuxuu ka yahay mataqaana asaasi ayuu ka yahay barnaamijka ugu dambeeya aan rabo inaan ka hadlo soomaalida waa dad runtii dhibaato ku dhacday laakiin ka soo kabsanaya ilaahay sida ay tahay waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo dowladihii gacanta ka qaatay gacanta ka geystay oo intaas garab taagnay isla markaasna waxaan rabaa doorashooyinkan inay doorasho yacni nadiifka ah ka fog faragelin ay noqdaan annaga waxa waaye waxaan rabnaa inaan ismaamulno inaan isdooranno murashax kasta barnaamijkiisa siyaasadda uu la yimaado xildhibaanku go-aankiisa oo qaato laakiin ma rabno dowlad kastaba waxay jecesha arrimaheeda inaan la falagelin waxa ugu muhiimsan oo ummad laga ilaaliyana waxa waaye doorasho maxaa yeele doorashada masiirkeeda ku xiran haddii doorashada la farageliyo macnaheeda waxaa la farageliyey masiirkeedii waxaa la farageliyey madax bannaanideedii marka waxaan rabnaa dowladdaana waa fashilantay waa u wada jeednaa soomaaliduna maanta waxay u diyaarsan tahay inay iska beddesho yacni cid xaq u leh inay wasiyo ka bixiso cidda fiican iyo cidda xun ma jirto qof kastoo soomaaliya lasoo doortay xildhibaan kastoo soomaaliya lasoo doortay waxaa soo qaada mas-uuliyad inuu mas-uuliyaddaas istaayla loogu soo dhiibo waxyaabaha kale iska dhaaf laakiin fi nihaaya meesha warku kusoo dhammaanaya waxa waa xildhibaan kasta oo reer soo doorteen waxay kusoo doorteen mas-uuliyadda inuu qaado karo marka ha loo daayaan leenahay inta gacan siinaysa broseska ka shaqaynaysa horumarka shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsan anaga waxaan ka hadalnay in faragelinta laga dhaafo shalay waa ka hadalnay maantana waa ka hadlaynaa laakiin anaga dawlad gaar ah farta aan ku fiiqayno ma jirto qof kasta waxa uu sameeynaya saayis
taas waa qaybta hore qaybta labaad waxaa Uganda waa deganahay ilmahayga jooga inaan deganahay macnaheedu ma aha inay taageerayaan Kenya waa soo maraa waa jidkaygii inay taageeraan macnaheedu ma aha aniga rajada aan ka qabo inaan madaxweynaha horta 100% waa ku sheega madaxweynaha soo socda waa aniga hadda ku talagal lacagta xasan sheekh waa bixiyay laakiin codka asagu ma laha codka xildhibaanka iskale xildhibaankaana bixinaa waan arki doontaa insha Allah